urur-siyaasadeedka wadani ayaa mid kamid ah murashaxiintiisa ku soo bandhigay hotelka ee magaalada Hargeysa munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen taageerayaal tiro badan oo kamid ah taageerayaasha murashaxan cusub oo magaciisa la yiraahdo Aadan Cabdilaahi Cali Cabbaas ayaa gudoomiyaha urur-siyaasadeedka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo xogayaha guud ee ururkaasi Maxamed Cabdilaahi Uurcade Salaadiin waxgarad aqoon-yahan tiro badan ay ka soo qayb galeen munaasabada loo sameeyay ugu horeyn gudoomiyaha urur-siyaasadeedka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa hadal kooban oo ka jeediyay munaasabada murashaxaasi waxa uu xusay in ururkiisu u taagan yahay taabagelinta dimuqraadiyadda Soomaaliland isla markaana uu yahay urur ahaan ka ugu ballaaran ururada dalka ka jira waxaan uu xusay in ururkiisu u taagan yahay sidii uu markasta u soo bandhigi lahaa murashaxiin tayo leh oo wax ka qabta baahida magaalada Hargeysa Aadan Cabdilaahi Cali Cabbaas oo ah murashaxa munaasabadan loo soo agaasimay ayaa xusay in hadii loo doorto xilka golaha deegaanka uu wax badan ka qaban doono aragtidiisa waxa ku haboon ay u baahan tahay magaalada Hargeysa isagoo xusay in baahiyaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ay u baahan tahay ay yihiin kuwa aad u tiro badan inta karaankiisa ah oo wax ka qaban doono xogayaha guud ee urur-siyaasadeedka wadani mudane Maxamed Cabdilaahi Uurcade ahna maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa xusay in xilka golaha deegaanku uu yahay hawl culus oo hortaala mudanayaasha cusub ee loo dooran doono isla markaana muddada dheer ay xilkaasi soo hayeen iyo waxa dadku ka filayay ay noqdeen laba kala fog waxaanu xusay inuu ku soo dhaweynayo murashaxan jagada murashaxnimada ee golaha deegaanka ee Hargeysa sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Suldaan Yuusuf Maxamuud Xiiray iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan